munaasabadani oo ka dhacday xafiiska taliska guud ee ciidanka booliska gobolka Gabiley ayaa waxaa xilka kula wareegayay taliyihii hore ee ciidanka qaybta booliska gobolka Gabiley iyo taliyaha cusub ee loo soo magacaabay qaybta gobolka Gabiley waxaana munaasabadii xilkaasi ay kula wareegayeen goobjoog ka ahaa duqa degmada Gabiley barasab ku xigeenka gobolka barasabka gobolka gudoomiyaha maxkamadda xeer ilaaliyaha gobolka iyo saraakiisha ciidanka booliska gobolka Gabiley taliyayaasha degmooyinka ee gobolka ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay waxay daliil u tahay in ninku meeshii hadba shaqada looga igmado maxaan ku idhaahdaa loo bedelo aad baan runtii waxaan ugu faraxsanahay inaan waqti badan oo sanad iyo 6 bilood la soo shaqeeyay aan ka soo shaqeeyay gobolka Gabiley waan la shaqeeyay ragga saraakiisha iyo mas'uuliyiinta gobol degmo ee halka fadhiya waxaan dhul badan baan ka soo shaqeeyay rag badanna waa la soo shaqeeyay laakiin runtii bedel aan ka naxo oo nidhaahdo wallaahi raggii meeshaad ka tagtay waxa jirta kan Gabiley waxaan jeclahay adiguna inaad noqon doontid mid kaalinteedii buuxiya ku soo dhawow baan ku leeyahay qof walibana waxa uu shaqaysto xafiiska mas'uuliyadda ilaahay saaray ee loo dhiibay dunidu waa laba midun buu kala tagayaa ama kaarka naartu kala tagayaa ama kaarka jannadu kala tagayaa nooc kasta oo maamulo halka ka jira waan ka wada tashanaa wixii hawl ah iyo wixii shaqo ahba intaa kadib waxa munaasabadani ka hadlay guul iyo waxaanu rajaynayaa labadoodaba inay shaqada iyo xilalka loo igmaday ilaahay u fududeeyo waxaan kula dardaarmayaa kaliya hal arin sida uu taliyuhu sheegay gobolkan waa gobol xuduud dheer la leh wadanka Itoobiya oo khamrigii ama gaarigii aad ku eedin jirteen gobolada kale Soomaaliland hal gaari ama laba gaari oo biliiska isbaxsan jireen halkan warshadihii bayna kulaalaya warshadihii dhammaa ee lagu sameeyay sida saamuusaha inuu dibana looga soo saaray khamrigii xashishada ayaa halkan ku diyaara maanta halkan waxaan iskugu nimi xil wareejinta walaaladeen taliyihii hore ee qaybta gobolka Gabiley Axmed Siciid oo aynu sagootinayno isla markaana loo magacaabay xilka culus xilkii hoose hore oo aynu ugu ducaynayno Ilaahay in uu fududeeyo taliyaha cusub waynu soo dhaweynayna waxaan leenahay sida la wada sheegay gobolkii horumarka ee nabadda ee cagaarnaa ku soo dhawow kulli waa gobol dawladnimadu aan sidaa hal number 1 buu kaga jiraa Soomaaliland aynu maanta halkan ku sagootiyano aynu ku sii macasalaamayno taliyihii qaybta hore gobolka kuna soo dhaweeyno taliyaha qaybta cusub sharaf weyn bay runtii noo tahay in saraakiishii ama mas'uuliyiintii gobolka oo dhan ay u wada joogaan inay marxaati ka ahaadaan soo dhaweyntii sagootinta labada mas'uul saa la sheegay waxa runtii Axmed Siciid saraakiisha iyaguna runtii taliyayaasha saldhigyada ee degmooyinka uu ka koobaya gobolka Gabiley taliyaha sirdoonka taliyaha traafikada hawlwadanada kale runtii iyaguna runtii ka qayb ah booliska iyo marti sharafta kale dhamaantiin ba salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaanta kadib runtii maanta qiimo gaar ah noo leedahay inaynu xafladan qiimaha leh aynu isugu nimaadno oo runtii labada mas'uul aynu xilka u kala wareejinayno waa maxamed cabdi cumar maxamed wadin warka warbaahinta SBC Gabiley